sidaan ogsoonahay haddii aanu nahay Soomaali cumuuman heerka aanu ka soo jeednay ee gabooyo isku ilaa Soomaali xidid iyo xigaan midna lama aha si Soomaalida kale isku la dhalaan oo laga yaabo hawiyaha iyo isaaqoon xididaan dul baahantaha iyo isaaq waa xididaan ogaadeen iyo majeerteen waa ka daali Soomaali isku wada ilaa meel kasta ay joogto xidid iyo xigaan lima ka dhaxaysa laakiin reerka anagu aan ka soo jeednay gabooyo la yiraahdo Soomaalida oo isku wada idlaaqo anaga xigaalna naga ma dhaxeeyo xidnimo naga ma dhaxayso taasina runtii wax qarsoon ma aha oo waa wax boqolaal sano soo jira weey دبلنا إليها جنتين أبواب جيدة لمن تريد ما فتقن جيباية دنيا دعوة وعاقري ويدقيني دنيا الصوان وجودك الواجح دقاعدة أنا ما سمعني له ما سواي تتمع الرياضين يخرجوا إنما بنيت فوقاي عقلك دوني لقد كان يحيون زوجاجا لما يودت قوة صدح وحن دوني أنت حنونك إلا ذي اسأل الطبيب اسأل جرب ولا تسأل الطبيب أنت حنونك إلا ذي بان ربما ما تينا وحير إذا كيد هذا أنا قول سوريا شو قول مال شركة كشقية هذا عندنا عيادو كروشهاي ونما سوريا أنا لا شقينا أي صومالي دي ماشي يقول شقينا يوحى أوتجن منك عربتها وحى كل هذين محمد نور موغاني قال لي محمد موغا مركز دم قاعد على السوق أبي محمد موغا خدام بكل هذين منك بكل محمد موغا متجان تكوركو وطبيعات إلهي كو أبو ري نفليده أم بدتها نقطة أم حوله حيسكو تكوران إذا موقع هي أورت بني آدم كو حيسكو تكوراه مذهبك دينته أقوانته محو هاي إيو السركة مركا waxaan filayaa haddii aan qaybaha kala qaadno qowmiyadan loo yaqaano ama Soomaalidu ay ugu yeedho midgaan tumaal yibir iyo wixii la mid ah labada mid kuma takooraan Soomaalidu waxay ku takooraan mid ay takoorayna garanay ayna fahmi karin waayo israahan haddii la eego waa Soomaali dadkan دين هدي لا إيجانا ومسلم ماذا هدي لا إيجانا ويسوق جين سومالي ذكر واحد مودا dadkani awal waxay ka shaqeyn jireen kabihii dayuur baa laga keenay guud baa la keenay sandal baa ku xigay huudey baa u dambeeyay kaboole waxa loo qabtay maanta ma jirto tumaalaha qolada birta tunta waxa la waxay tumi jireen yurub baa laga keenay waxay maanta hayaaniba ma jirto girgira ku haray dariya lagu kariyo kiina imika loo haloosiyaa la leeyahay waxa dhirtii baa dhamaatay samgaasa la
ayan dabayl urin awood malen markaan guurka hooyaday haddii ayan dabayl urin awood malen markaan guurka hooyaday عيدك وقصوب حي عنيقونا فعبرا نعودي جود قليل يقو أنقريو قرلي قيسو عيدك وقصوب حي عنيقونا فعبرا نعودي جود قليل يقو أنقريو قرلي قيسو عينانكو أبيضون عدوك إلاشون عايها قتليان أحدكو قمريان عرقينو عينانكو أبيضون عدوك إلاشون عايها قتليان أحدكو قمريان عرقينو تجاوزك مردعي أكون تقل جرى توبة وقهر توبة تجاوزك مردعي أكون تقل جرى توبة وقهر توبة walaalayaal islaanta islaamka ayaan idinku salaamaya marka hore dadka aan garanaynin anigu qoliyahan laga hadlay laftoodan ka dhashay cid gaarana ka caban mayno Soomaali oo dhan baan ku cabanayna inta af Soomaaliya ku hadashay iyo meel kasta degaan barnaamijkan aan u bixisay walaalayaal xaalmarinta walaalaha xumeey anigu waxaan oran lahaa xalkii baan ku jirnay xaalku haynoo yar dambeeyo taa macnaheedu waxa weeye cid kasta oo arrinta wax ka qabanaysa ama ka hadlaysa waan soo dhaweynaynaa laakiin wax kasta inay cad yihiin sida leerka ayaa muhiim ah su'aashu waxay tahay xaal anigu diidi mayno laakiin xaalkiyaanu ka qaadanay la siinaya ma shakhsi baa na siinaya ma dawlad baa na siinaysa ma dad gaar ah na siinaya ma gobol baa na siinaya ma madaxweyne na siinaya waxaan doonaynaa cidda xaalka na siinayno aanu ka qaadanayno inaanu ogaano kuma lihin lid daarood waxaanu lid ku nahay oo la diriraynaa dhiigyacadka maxamed siyaad bare iyo inta la safan oo xabadda la soo ridaysa kuwaa weeye kuwaan la diriraynaa ragga ninka la ninkii midkada ee dagaalamaya ee mujaahida ee ogol inuu dhinto ee qadin dagaalamaya kaasa ninka niyadda adag baa guray waxaan ilaahay hortiisa ballan qaadaya inaanan daarood u kala eexan waxaan ilaahay hortiisa iyo hortiinnaba ka caddaynaya inaanan daarood kala jeclaysan markaa wuxuu ii sheegay aniga wax laygu yidhi ma idiin sheegay Itoobiya markii layga yeeray ugu dambeysay oo istantumo kaligeedaan ka laga yeeray waxaa lay buunta la iska dhaafo Djibouti iyo Itoobiya intay sii yimid oo hubi la galay waxay la saarayo عرفتك ورئيس الوزراء هذا أنا اللي يجيني وهو حنقول بونتلان بام ولا حاجة بونتلان بام كذا بونتلان شعب كذا يحكمه شركة سنكو مني وحن بونتلان يدفن وهاي هذا يشرب كذا يمستقبل كذا يفكروا لأنك يجري ما يفرشنا ما يسا كمرة الدين اللي يراه ويا كنا مرة الله يسأله قال هذا كله ويا كنا waxaan qarsoonayna kale aan jeclahay inaan xusuusiyo deputy chairmanka ama deputy chairpersonka iyo wafdigiisa aniga meesha ka hadlaya oo laga yaabo inay ii haystaan dhalinyaro galabta
kuwii bilaabay burburka soomaaliya ninkii ugu horreeyey horseedka ka ahaa anigu ah hadday xaaja murugsan tahay takbiir lagu ruuxushaa isma qalbeen hormatida waa laga rartaa waxaan dhammaan u soo jeedinayaa culummada aqoon-yahanada ganacsatada salaadiinta waxgaradka cuqaasha hay-adaha xuquuqul insaanka dhammaantood waxaan u soo wada jeedinayaa waxaan nahay ummad dhammaan ku jirta container haddaan nahay gabooye bimacnaa waxaan ka hadlayaa containerka ay ku jiraan waxa weeyaan waa ummad aan lagana guursanin deegaanna lahayn iyaguna aan cid ka guursanin in loo guntado waa ummad Soomaaliyeed waa ummad muslimiin waa ummad Soomaalilaandar ah inta Soomaalilaandar degan in la siiyo degan in containerkan xarigan laga tiro oo hablaha loo hibeeyo ilaa wax kuma yaalan ummadii la mid yihiin oo si caadi la isku guursado oo ilaahay inta laga baqo subxaanahu wa ta'ala culimadu way ka gaabiyeen doorka ay ku lahaayeen ganacsataduna waa la mid cuqaashu waa la mid oo waxgaradku waa la mid barofesoradu waa la mid hay'adaha xuquuqul insaanku dhammaan waa la mid arinka waa laga gaabiyay anigoo ku hadlaya codka jaaliyadda Soomaalida la hayb sooco ee aad magacyada quruxda badan aad u bixiseen nasiib wanaag waa dhamaatay waana soo gabagabowday xilligii uu ninka gabooyaha ah madhibaanka tumaalka muuse dheriyaha yibraha ay ka faani jireen waxa ay u dhasheen wax badan oo dhibaato ah oo xanuun ah oo aad wax yar nala dareenteen kolkaad wadamada Yurub aad timaadeen oo lidinku midabta kooray kalarka ayaa aad iyo aad ii gubayay ilaa yaraantaydii ilaahay baa mahad iska leh naga dhigay kuwa aan wax dulmin ilaahay baa mahad iska leh naga dhigay kuwa aan wax dulmin ilaahay baa mahad iska leh ee naga dhigay kuwa aan wax dulmin ilaahay baa mahad iska leh هايلها ماشي كيربايين iyo waxaan u soo caranay qaxootiga